cusub xaaladda degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose faafahinta qodobkaasina waxa inoo haya wariyaheena Ibrahim Jumuuni dagaal xoogan oo u dhaxeeya beelo wada degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xalay mar kale oo ka qarxay degmada Walaweyn iyo qaar kamid ah tuulooyinka ku hareeraysan qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalkan uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo aanan la xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ah dagaalkan ayaa waxa uu salka ku hayaa dagaal maalmahan ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ma jiraan ilaa iyo hadda cid kala dhex gashay maleeshiyaadkan ku dagaalamay degmada Walaweyn waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in tuulooyinka qaar dab la qabadsiiyay ay waqti xaadirkan gubanayaan Ibrahim Maxamed Xasan Ibrahim Jumuuni Radio Wadaniyan TV